أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شدة قيامة مركو نبي جنو كورم عليه الصلاة والسلام أي تري يا رسول الله مالك سر جوجا أي وقت كيسان كريا بيكتري من يقوى أي كريا بيكتري كنتم كنا صندوق مرقاب النبي يقول يا عائشة قفك مؤمن كإيمان كله إيه أدوية دوشة إلهي كسو أضاعي والله فوديدين صلاة دفرت كأنت أتوكتان إن لك بابك قيام الله قد يجيبودي أنت كنا صلاة المغرب 5 دقيقة لبيه 8 دقيقة صدحيه 8 دقيقة مؤمن كإيمان كله إيه أدوية أنتو جوجا كصحي قاتي إيه إلهي تبارك وتعالى أكتيس وحسير دكتي إيه آخرة كسر حساب تمي إيه تلابض وقاذا يبا إيه آخرة ديس هذا اللي كنتو كسوا بحين قفك مؤمنك آخرة دو إيه دقاليه سينتو ننبحين آخرة دو إيه ماشو مريو آخرة دو إيه ماشا أنو السعودة ما مال آخرة دي إيه داوعي سبا مسوا مال آخرة دي وحيط رئيسا هذا الكايغا صوبحايا ما هذا الآخرة دي داوعي با oo dib ii geysanaya hadhow toole mise waa hadal aakhiradeeda aan ku badbaadayo dhaqaalahan bixinayo ma dhaqaale aakhiradeeda ay kabayaba oo aakhira ku badbaadayaba oo ma meel fiican buu igu dhacaya mise aakhiradeedii buu dhaqaalahaas iga bixinaya oo ka qabsada inta goor tahay muuminku uu xisaabtamaya muuminka adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay ku soo caabuday salaada yare faradka inta uu tukanayay in la eg baabanka qiyaama looga dhigaya dadkii ilaahay yaqaanay daraariya habeen aakhirada hortaalla iyaka aakhiradu qofka hadday hortaalla maxay ku aakhiradu kugu saameynaysa noloshaada aakhirada maxay kugu reebaysaa ma taqaanaa waxaad doonta ku hadli kari maysid waxaad doonta eegi kari maysid waxaad doonta cuni kari maysid sidaad doonta u noolaan kari maysid waayo dareenka aakhirada qalbiga hadduu galo dareenkaasaa xumaanta oo dhan kaa joojinaya wanaag oo dhan kuu diraya dareenkaasaa qofka qabanaya qofka inuu macsiyada waxa ka qabanaya waa dareenkaasi waa iimaan weeyaan iimaan ilaahay rumee aakhirana rumee ilaahay rumee aakhirana rumee waa labada nabiyadu dadkay ugu yeedhayeen nabi kasto adduunka la keenay ummadda ilaahay xaqiisa ugu yeedhay aakhiradana xaqeegu ugu yeedhay waxa ilaahay kaaga raali noqona waa iimaan iyo amal saalix waxa aakhiradaadu ku badbaadaysana waa iimaan iyo amal saalix maalin maalmaha kamida ayaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiinu soo maray wuxuu arkay markaa saxaabada qaar kamida aqal yar oo cariisha markaa ay dhisayeen markaa buu nabigu yiri maxaad haysaan waxay yiraahdeen aqalkan baa soo yar duusayo waan la tiirinaynaayo waan la dhidhisaynaa markaa buu nabigu yiri wallaahi anu ma arko ilaa saacada ka degdeg badan buu ka yidhi saacada qiyaamada ka degdeg badan buu ka yidhi intaad aqalka dhisaysaan malagii suurta afuufayay waa israafiil calayhi salaam ayaa buuqii qaatay buu rasuulku yidhi foonintii buu qaatay lugihiina uu kala fidiyey markaasuu sidaa u haystaa idan ayuu sugayaa idan saxaabada rasuulku hadalkaa markay maqleen waxayba moodeen inay saacaddu berri ay dhacayso oo hadda suurta lagu dhifanayo markaasay yidhaahdeen yaa rasuul allah maxaan idhahnaa noo sheeg markaa buu nebigu yidhi waxaad tidhaahdaan xasbuna allahu wa nicma alwakiil dhahda wallaahi markuu aakhirada kala hadlaayo markuu jannada kala hadlaayo markuu naarta kala hadlaayo markuu qiyaamada kala hadlaayo dareenkoogu wuxuu ahaa si waxay jannadii naartii hadda ay arkayaan isha ku hayaan innakana maanta ma sha Allah dadka muslimiinta dareenkaasi maanta waa nagu yar yahay ilaa man raxima rabbi mooyaane لأن قلبك وسامو بقلبك إن القلوب لا تزدى كما يزدى الحديد إذا أصابه الماء برتا حديدك بيوه هدي تابتان دحل بيكون ريبان بيوه قلبك بني آدم كنا دحل بو يشاء ها قلبك دحلينا يا وحنا ديقيس قلبك سامين يا وحنا ديقيسين قلبك سامين يا وحنا تكون هذا قلبك سامين يا
waxaanaad ka fikiraysa qalbigu saameynaya waa afarta qasabadood ee qalbiga bini aadamka ku socoto weyn afartaas saabaatul qalbi bay culimadu yidhahdaan waxaad eegto qalbigu galaa waxaad ku hadasho qalbigu galaa waxaad ka fikirto qalbigu galaa waxaad dhegaysato qalbigu galaa qalbiga daxalka maxaa lagaga biiyaa laba shay bay culimadu yidhahdeen laba shay baa qalbiga daxalka lagaga biiyaa qur-aanka akhriskiisa oo la badiyo iyo aakhirado inta badan la sheego la xasuusto laga sheekeeyo labada maanta may nagu yariin mise way nagu badan yihiin yaa qur-aanka akhriskiisina waa nagu yaraaday aakhirada sheekadeediina way nagu yaraatay bal sheekada aakhirada saxaabadu مسكيت كنت كقادم بالسوق آخرة كجشة سنين دتك مسلمين تزمن كان جوجنا شيكدي أدوية أنت كسوق قادم تبدأ أي مسكيت كده هذا كان يعني اسبدل كان نقول دعية سوق مساجد سوق المسلمين كمصلاهم بود علي بن أبي طالب سوق المسلمين أسواق المسلمين تو واسد مساجد أو كلويان سد مساجد إله الله جوينينا يو أيا زمن كي النبي سوقنا إله الله جوينينا يي سد مسجد كده حديث إله الله جو عاصيين أيا سوق وجينا إله الله جو عاصيين إنك أنا زمن كنا ما أنت شيء كذي دبدة تالي أيا الله جاي أبا إن لك أنا مسجد كجوديهس نبو أركي النبي عليه الصلاة والسلام مسجد كده حديث بيله كي يبو هنا يا مرقاب النبي يقول إلهي كوما سوء اللي يبو كيري هذا أركتان بو النبي يقول إن مسجد كده حديث بيله يبادي كي يبو هنا يا وعتر هذا إلهي كوما سوء اللي يده هذا أركتانا نن مسجد كده حديث جناعسي يتجارة كده سمينا ينا وعتر هذا إلهي كوما بركة يده هذا إنما بنيت المساجد لما بنيت لها مساجد وحي لورد سيب رسول كيري نولش مساجد تالله علماء دوليهين أي الله ربعين دبد الله ساره نولش دبد تالله مسجد كين لك أنا ماها عهدي النبي عليه الصلاة والسلام يا عهدي الصحابة دتك مسلمين تو نولش مسجد كأيكو هايستان أي دبد ولا بحال هل كان إلهي بك كبقين دبدنا إلهي بك كبقين هل كان إلهي بك كو أمانين دبدنا إلهي بك كو أمانين هل كان آخرة كوينين دبدنا آخرة كوينين والله سيرة كتلا عمر بن الخطاب سوق مدينة تو قلبوا أورنجري هل كان فريسية إلهي ساعدها الرومين كاليا عبد الله بن عمر انتو يما طفيل بوكو أورنجري إن مري الرعب أورنجري حقين تجنا سوقا تجنا سوق يوم يصوب حيان هذا أنا مالك قالوا لي نمر الراع هذا أنا مالك سدحات بوري الراع وعبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب يطفيل وتابعيها مالك سو مرقوا دور عيسى مرقوا سوقي كحل عليي وكحل عليي بوكير يا ابن عمر سوق وان قيسا مالي والبا بدعنا كما سو يبستد بدعنا وما يب قيسد بدعنا ما سو بايعدد ما لا هدتكم فرديانا انما فريسيد ورالكن ان فريسي بور halkan noogu sheekay bukaydi oo halkan diinta nagu bar sheekada saxaabadu diin bay ahayd marka ibn umar baa ku yiri waraa kaagan caloosha buuran li inma naqdu min ajli as-salam waxaanu ka lahaynaa waxa weeyaan dadka inaan salaano baanu ka lahaynaa bukaydi assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu baanu ka lahaynaa waa duco weeyaan ducada baanu ka lahaynaa muslimiintaanu ducaynaynaa iyaguna way noo ducaynayaan بقول قفانو دعينينا بقول كاسي وينو جوابين ودعو لقى يابا بقول كا أولياء إلهي انت يكون حجرتو إن إلهي دعا دو ظنو أقبله صلاة المسلمين تلسي ومعي صلاتين السلام عليكم نبت قل يدي إلهي يا نحريستي إلهي يا بركاتك إلهي كركاك هذان كي كلا مسلم كوحو كليهي أديقنا نبت قل يدي إلهي يا نحريستي إلهي يا بركاتي إلهي كركاغا هذا بوكليهي سلامتا صلى سوك الله هينا بقول قف سلامينا لما بقول قف سلامتا امه سلامينا وينو جوابيان waxay garanayeen saxaabadu in salaanta muslimiinta ay la dhaxmareen ilaahay intuu aqbalo inay nabadii helaan oo naxariistii helaan oo barakadiina ay helaan inagu bagaashka iyo
badaacadda iyo adduunyada loo kala lahaa mooyaane sunnaha nebiga loo kala lahaayoo lagu noolaan lagama dhadhacsana maanta salaantaasaa lagu dhargayaa cali bin abi aalib inuu yimid uu ka yidhi saaxiib alciyaal baan ahay maciishadii baa igu adkaatay markaasuu yidhi lacallaka tanaamu bacda salaati alfajri buu ka yidhi malaha salaada fajr kadib ayaad seexataa buu ka yidhi markaasuu yidhi mayma seexdo lacallaka tamshi amaama man huwa akbaru minka sinnan buu ka yidhi malaha qofkaa da'weyn markaad la socoto ayaad hor socotaa buu ka yidhi haddana hor martaa markaasuu yidhi may haddana markaad ducaysanaysid ma laga yaabaa inaad labadaada waalid ilaahay dembi dhaaf aanad u weydiin markaasuu yidhi haa markaa birta arsaaqada kaa xidhay waa taas labada waalid ducada ku dar buu arsaaqada ay ku furmiyeen meelaha inagu imika wax ma ka egeegnaa ya may salaanta dadka ay salaamayaan bay risiqa ka dhex arkayeen waalidka ducadiisa u ducaynayaan bay risiqa ka dhex arkayeen istikfaarta ay badanayaan bay risiqa ka dhex arkayeen salaatu duxaada ay tukanayaan bay risiqa ka dhex arkayeen salaatu duxaada cahdigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaad moodaysaa salaad jamac in la tukanayo masjidka zaxmadda iyo cidhiidhiga ka dhacaya diintan ilaahay nooma siinin keliya inay aakhira manfacadeedu nooga bilaabanto bal ilaahay diintan waxa uu noo siiyey inaan adduunkan iyo aakhira aan ku dhargno ku libaanno marka noloshan adduunyada intaan haysano waa fursad yaanan dayicine adduunyada diinaha ka qaadanno diintana asaaskeegu waa iimaan iyo yaqiin weeyaan yaqiin iimaanku waa maxay ilaahay rumee yaqiintuna waa maxay aakhiradu ha kula weynaato wallaahi hadday aakhiradu inala weynaato dhaqankeennaa toosi oo risiqeennaa xalaal noqon oo mujtamac oo dhan baa isbedeli waayo laanna mujtamaci waxay noqonaya mujtamac aakhiro ku xisaabtamaya sidii labadii nin ee xadiiska nebigu noogu sheegay fi sunan nin baa nin dhul ka iibiyey dhulkii markuu gatay waa dhulbeereed buu ahaa uu falay markaa khasna dahaba markaa uga soo baxday jarra min adahab uu qaatay uu la ordo ninkii lahaaba uu keenuu ka yidhi war dhulkaad iga iibisay dahabka intan leeg baa ka soo baxee malaha waadi lowsaneeda iga qaada buu ka yidhi markaasuu yidhi may anigu kuma ogeyn adaa ilaahay kaa siiyey adaa iskale iska qaada buu ka yidhi war waxaan adigaa le iga qaado innaga zamankeenna waa maxay war waxaan anigaa le isii weeyaan teen waxaan ku dagaalamayno dhulkan anigaa le gurigan anigaa lahaa meheraddan anigaa lahaa waxaan anigaa lahaa baa isku haysannaa iyaku waxay taagnaayeen dadku markay hagaageen war waxaan adigaa le iga hoo iyo kaa qaadan maayo may ma dhici karto may adaa iska le adaa ilaahay ku siiye iska qaado may dhulkan adaa iga iibiyey malaha waad halmaamsantahe adigaa iskale iga qaado waxaan malihi anigu yahay lacagta intan leegna anigu kuma siine may labadii nin intay isqabsadeen bay maxkamadda tegeen maxay isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kale ale ha iga qaato kanna wuxuu leeyahay war malihiye isagaa ilaahay siiyey ha iska qaato qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa qudaada zamankan laga yaaba inay odhan lahaayeen xoolaha dawladda ale iska keena ilaa qaar baa iska fiican way jiraan laakiin kuwada waxa iska jira dawladda u shaqeeya moogta xoolaha dawladda iska keena halka ka baxay ninkuna ma odhan wuxuu yidhi adu maxaad leedahay ubad wiil adiguna gabadh labadaa isku guuriya labadaana xoolaha siiya buu yidhi balfirso islaaxu waa cajiib halkaa hadday islaaxdo waa cajiib halkaa hadday xumaato laakiin dhegayso qisad kale